aanu ku tagnay gobolada dalka wuxuu ahaa safar muhiim ah oo wax badan ku soo kordhinaya guud ahaan dalka Soomaaliland waxa aanu soo furnay sala socoteen xafiisyo baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland ama golaha wakiiladu oo ku yeelan doono gobolada caasimadahooda gobolka Awdal iyo Saaxil iyo Togdheer oo saddexda magaalo madax Boorama iyo Berbera iyo Burco aanu ka soo furnay waxa xafiisyadaasi ay yihiin xafiisyo ku qalabaysan ama ku gaashaaman dhammaan xeerarkii dhaqangalka ahaa Jamhuuriyadda Soomaaliland ay lahayd waxa kaloo xafiisyadaasi ay noqon doonaan kuwo laga helo qabiil qoraalka xeerarka golaha wakiilada doodooda ka socoto oo ummadda ama populationka ku dhaqan magaalooyinkaasi ay nasiib u heli doonaan hadda laga bilaabo kalfadhiga soo socda laga bilaabo xeer kasta oo doodiisu golaha wakiilada ka socoto in bulshada halkaa degan gobolada degan xafiisyada aan soo furnay ay kaga doodi doonaan iyaga laftirkooda oo loo diri doono qabiil qoraalka xeerarkaas iyo soft copy isla markaa shaqaalaha halkaa jooga ay la sheer gareyn doonaan aaraadooda iyo fikradooda oo golaha wakiilada dib ugu soo celin doonaan waxa kaloo ay xafiisyadaasi noqon doonaan xafiisyo xildhibaanada gobolada ka soo jeeda iyaga laftirkoodu xilliga goluhu fasaxa yahay ay dib ugu laabtaan oo ay ku shaqeeyaan oo ay bulshadii deganeed magaalooyinka ama gobolada iyo xildhibaanadooda ay ku kulmaan oo isku arkaan isku xog wareystaan oo wixii baahiyo jira iyo wixii shuruuc qabiil qoraal ah jira iyo wixii cabashaa intaba lagu soo ururiyo waxa sidoo kale xafiisyadaasi ay noqon doonaan xafiisyo guud ahaan bulshada degan goboladaas iyo degmooyinka aan soo sheegnay cabashadooda dhinac kastaba ha ahaatee lagu soo ururin doono oo ay warbixinahooda si toos ah loogu soo gudbin doono xaruntan guud ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland ama golaha wakiilada ee Hargeysa waxa kaloo iyadana jirta gobolada Sool iyo Sanaag qorshe loogu talagalay oo xafiisyo kuwa la mid ah lagaga furayo magaalooyinka Laascaanood iyo magaalada Ceerigaabo waa kireyseen hadda xafiisyada halkaasi laakiin qalabkii iyo agabkii kale la dhigi lahaa baa ka dhiman iyagana waxaan rajaynaynaa inaanay bisha afraad ee sanadkan April nala dhaafin oo soo furi doono insha Allah iyagana biidnillaahi tacaala inta kadib waxa ku xigi doona xafiisyo ama baarlamaanku yeelan guriyo dhismo ah oo baarlamaanku yeelan doono oo rasmi ah oo laga dhisi doono dhulka aan soo tilmaamay ama gobolada aan soo tilmaamay waxa sidoo kale xafiisyada la dhisay ku jiri doona gobolka Murudijeex caasimadiisa Hargeysa oo xaruntii guud ku taalo iyadana waxa yeelan doontaa xarun gaar ah oo xildhibaanadii gobolka laga soo doortay ay gaar ahaan ku shaqeeyaan 20kii xildhibaan ee gobolka laga soo doortay xildhibaan waliba xafiis u gaarana uu ku yeelan doono oo iyadana laga dhisi doono haddii Ilaahay yiraahdo magaalada Hargeysa waxyaabaha soo dhabay waxyaabahan ugu talagalay inuu noqdo dhaxalka uu ka tagayo golaha wakiiladu ee imika waqtigiisu gabagabada yahay wixii kale soo kordhana insha Allah biidnillaahi tacaala waxaan jecelahay inaan dadweynaha la sheer gareyno oo aan mar walba sida aan isugu xidhnaano una sheer gareyno informationka iyo qaabka shuruucda dalka loo faafinayo ama loo baahinayo dadkana waxaanu leenahay barta xeerarka waa taa la idin soo dhigay goboladii degmooyinka la idin soo dhigay arkaysaan ay yaalaan maanta qof oran kara de ma hayo meelan ka eeko ma jiro qofkii computerka ama soft copy kala bixi karayana website-ka baarlamaanka Soomaaliland uu ku jira waa laga wada helayaa kii kalena xarumahaas isagoo hard copy ah uu ka helayaa muhiimaduna waxa weeye bulshadu inay barato xeerarka lagu dhaqayo wuxuu xaq u leeyahay qarankiisu in qofku barto isaga waxa xaq lagu leeyahay inuu barto waa waajib weey markaas uu qofku muwaadinka noqon kara qof aqoon leh karti leh wax qaban kara waxa xukuumaddu ay ku dhaqaysana garan kara inuu yahay wax sax ah iyo inuu yahay wax qaldan saas darteed waxaan leenahay bulshada u soo jeedinaynaa maadaama xeerarkii maanta gacantiina ay ku jirto gobol walba la idin soo dhigay ka faa'iideysta jaaniska taga xarumaha
ku akhrista oo sheergareeya oo barta waanu leenahay shuruucdiina sidii aan ula jaan qaadi lahaydeen wacyiga dalkiina iyo marxaladaha uu marayo intaba dhanka kale maalmahan ugu dambeysay waxaa murano badan ka taagnaa doctor Macaw nin la yiraahdo oo dhakhtar caafimaadka ah oo magaalada UK wadanka UK magaalada London ka soo baxay isla markaana Hargeysa jooga hadda dhakhtarkaasi sida information-ka aan ku hayno sifa sharci ah ayuu ku yimid wadanka hase yeeshee qaabkii uu u shaqaysan lahaa isagoo ku guda jira ama shaqadii ku guda jira oo bulshadu baahi u qabto oo dad iska diiwaan galiyay aad ka garan karayso in baahi loo qabay ayaa laga joojiyay shaqadii waxaan u soo jeedinaynaa horta aan jecel lahay anuu haddaan guddiga joogtada nahay inaan kulamo la yeelano intaana waxba ka odhanin darafyada ay arrintaas khusayso hadday yihiin wasaaradda caafimaadka iyo haddii ay yihiin hay-adda ama commissionka xirfadlayaasha caafimaadka iyo darafka kale ee doctor Macaw ka socda intaba inaanu kulamo la yeelano oo aanu xog wareysano waxyaabaha la isku hayo ama loo hortaagan yahay in shaqadiisii uu guto ka bacdi markaa guddiga joogtadu ay arrintaa iska aragto iyo darafyadaasi waxaan jecelahay inaan warbixin dhammaystiran oo cad aan ka soo saarno haddii beedankada leeyahay waxaanu leenahay oo mar walba dhiirigelinaynaa dalku in sumcadiisa iyo karaamadiisa la ilaaliyo oo xukuumaddu wax kasta oo sharafta iyo karaamada dalka wax u dhimi kara ay ka foojignaato ama ay ka digtoonaato inta haddii aan taa kaga baxo baryahan dambe iyada laftirkeeda waxaa jiray khilaafyo fara badan oo soo jiitamayay oo ay ka mid yihiin baanka dhexe iyo wasaaradda maaliyaddu oo ay ka mid yihiin garsoorayaal cabanayay iyo hay-adda guddiga cadaaladda oo ay ka mid yihiin golaha deegaanka ee Hargeysa iyo golaha deegaanka ee degmada Salaxley oo iyaga laftirkooda dhul isku haya ama area zone ay soo galaan isku hayay waxaan jecelahay dhammaantoodba in guddiga joogtada golaha wakiiladu sida ugu dhaqsaha badan leh ay kulamo ula yeelato oo ay arrintaa ku axadho ama ay ku lafagurto sharcigana ay la eegto hay-ad kasta iyo commission kasta oo arrimahan aan kor ka soo sheegnay ay khuseeyaan waxaanu jecelahay guddiga joogtadu in insha Allah biidhnillah taala hawshaasi ay u gudato si xilkasnimo ay ka muuqato isla markaana hay-adaha dawliga ah dhammaantood wada shaqayn dhow aanu la yeelano oo aanu mid walba la kulanno annagu xafiiska ugu yeeri doonaa haddii ilaahay idhaahdo saxaafadduna ay ka warhayn doonto waxaan jecelahay maanta warbixinteedu inay intaasu ku koobnaato wixii dambana guddiyadu markii ay guddidu isla arkaan hay-adaha aan kor ku soo tilmaamnay wixii ka soo baxa aanu ummadda u soo bandhigi doono biidhnillah tacaala inta golahu fasaxa ku jirana aynu haddii ilaahay idhaahdo shaqooyin badan oo ku saabsan hawlaha iyo wixii kale ee soo kordhaba aanu yeelan doono shaqadeeda ama guddi ahaan aanu kulamadeeda ka fadhiisan doono biidhnillah tacaala saxaafaddana dhammaantiin aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waan mahadsantihin